Garoonka Victor Ayub Stadium ee magaalada Baydhabo ayaa shalay galab martigeliyay ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka Shaati Gaduud Cup, taasi oo si weyn loogu wada sugayay, waxaana fooda isku daray labada kooxood ee miisaanka culus ku leh magaalada Baydhabo BCC iyo FC Darusalaam. Taageerayaal fara badan oo labada dhinac ah ayaa garoonka soo buux dhaafiyay, iyaga oo lahaa yididiilo, xiise iyo rajo ay kooxdooda guusha kula hooyan doonto. Kooxda BCC ayaa garoonka soo gelisay ciyaartoy ay dibadda ka soo xirteen, kuwaasi oo magac iyo miisaan ku leh kubadda cagta, laakiin sheekada garoonka ka dhacday waxa ay noqotay mid ka duwan filashada dadweynaha. Xidigaha laga doonayay in ay ciyaarta bedelaan waxba kama aysan soo kordhin, isku xirnaanta kooxda ayaa ahayd mid liidata. Waxaa markiiba muuqday in magaca kaliya aanu ku filnayn in final lagu guuleysto. Dhinaca kale, Darusalaam waxa ay garoonka la timid ciyaartoy daayar ah laakiin xirfad sare leh, kuwaasi oo ay muujiyeen kubad dhis, dhaqdhaqaaq degdeg ah, isku xirnaan muuqata oo u dhaxaysa khadadka, awood ay ku jabin karaan cadaadiska BCC. waxayna ahayd koox aanu ku tiirsanayn magac, balse ku socotay ciyaar casri ah iyo tababar muuqda. Intii lagu guda jiray ciyaarta, labada kooxood waxa ay muujiyeen dadaal iyo feejignaan dheeri ah. BCC waxa ay xoogga saartay difaac adag, Darusalaamna waxa ay goolal dhowr ah ku baroogaysay shabaqa BCC. Ciyaarta waxa ay noqotay mid cadaadis badan oo gool aan la iska dhalin waayay. Inkasta oo Darusalaam ay ahaayeen koox muuqaal fiican leh, haddana hal gool xitaa kama aysan gaarsin shabaqa BCC. Taasina waxa ay ku muujinaysaa in BCC difaac ahaan aysan sahlanayn. Markii la gaaray rigoore, waxaa la arkay farqiga dhabta ah labada kooxood. Darusalaam waxa ay muujiyeen kalsooni, xirfad, goolhayaha oo noqday geesi kooxdiisa badbaadsaday, daayarta oo muujisay niyad adeeg, halka BCC ay ahayd qalqal ku yimaada toogashada, cadaadiska oo adkaaday, xidigihii la soo xirtay oo mar kale ku fashilmay muuqaalka weyn. Ugu dambeyn, FC Darusalaam ayaa ku guuleysatay koobka markeedii labaad, taasi oo sii xoojisay sumcaddooda kooxda lagaga baqo marka la ciyaarayo tartamada garoonka dhexdiisa ka socda ee magaalada Baydhabo. Waana kooxdii labaad oo si xiriir ah ugu guuleysata koobkan. BCC ma ahan Darusalaam, Darusalaamna ma ahan kooxda BCC.